haddii aynu soo qaadano taariikhda dalkii la odhan jiray andalus waxay ka mid ahayd wadamada ugu xadaarada weyn islaamka waxaanay ku taalay galbeedka qaaradda yurub dhulka imika loo yaqaano Spain iyo Portuguese xadaaradaheedii ugu waaweynaa waxay ahaayeen qarnigii 8 iyadoo gaadhay ilaa qaybo ka mid ah Faransiiska waxaana lagu magacaabi jiray dhulka xadaarada islaamka ay Amawiyiintii qabsadeen haddaba andalus waxay lahayd xuduudahaas oo sugnayn marra weynaan jiray marra yaraan jiray taasay sababteeda ahayd dagaalada lagu soo qaado marra laga guuleysan jiray mar iyagoo ay guuleystaan dagaaladaas oo ay kula jireen gaaladii waqtigaasi jirtay oo dagaalo fara badan ay ka dhaxeeyeen furashadii ay muslimiintu furteen andalus waxaa loo kala qaybiyay ilaa dhowr qaybood oo ay ka mid ahaayeen Portugal, Aragona, Lyon, Barcelona iyo qaybo kale iyadoo markeedii hore ahayd hal gobol oo hoos yimaada dowladii al-Umayya dowladdaas iyaduna jirtay waqtigii Waliid ibn Abdulmalik dhicitaankii andalus iyo imaatinkii Cabbaasiyiintu waxay dowladii andalus gacanta u gashay Cabdiraxmaan ad-Daakhili oo ka mid ahaa dowladda al-Umayya Cabdiraxmaan ad-Daakhili waxa uu aasaasay imaaradii Qurtuba taasoo jirtay muddo ugu yaraan lagu qiyaaso inay ahayd 179 isagana waxa ku sii Cabdiraxmaan al-Naasir oo isaguna taagay dowladdu ku magacaabay al-Umayya taasina waxay ku dhacday arrimo siyaasadeed awgeed kadib waxa ku xigay Cabdiraxmaan al-Naasir oo isagu xagaha u taagay dowladdu u dhigay al-Umayya taasoo ay ka dambeysay arrimo siyaasadeed waqtigaas jiray inta kadib andalus waxay u qaybsantay dowlado iyo imaarado loo yaqaanay al-muluk ad-dawaa'ir kadib andalus waxay noqotay meel ay ku wada yihiin muslimiin iyo gaalo iyadoo ay ka mid ahaayeen muslimiin yahuud xuutiyiin nasaaro iyo kuwa kale badan isla markaa andalus waxaa ka hirgashay xadaaradan adduunka hore lagu arag waxaanay noqotay meesha quraynta caalamku ay hayaan magaalada Qurtuba ayaa waxay noqotay tan ugu aqoonta fiican waxaana ka hana qaaday aqoon iyo ilbaxnimo aan adduunka hore lagu arag iyadoo tartan kula jirtay caasimadii Cabbaasiyiinta ee Baghdad